maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayraad Dirir iyo hogaanka ciidamada militariga iyo booliska ee gobolka Sool oo maanta kormeer ku tagay goobihii barakacyaasha ay deganayeen bilooyinkii ugu dambeeyay kuwaas oo ay saameysay kormeerkan ayaa ujeedkiisu ahaa in loo akhriyo go'aan ka soo baxay dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kaasoo sheegaya inaan la sameyn karin isla markaana dib loo dumiyo dhammaan goobihii barakacyaasha ay sameeyeen gudoomiyaha gobolka Sool oo akhriyay wareegtadan ayaa sheegay waxaanu ka soo kacay magaalada Laasaan saaka 7 subaxnimo kale waxaanu u soconay fulintii dekreetadii wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga uu qoray 8 bisha oo ka soo saaray gobolka Sool deegaamadiisa lagu xakameynayay baabiinta deegaanka xoolo daaqeenka ah iyo meelaha mataqaanaa iyo baabiinta kaamka jira ee abaartu sameysay saaka waxaanu marnay kaamka la yiraahdo waxaanu ka bilownay dhiiri goobo waxaanu soo qaadanay deegaankiisa iyo dadkiisa in la raro waxaanu ku xoojinay kaamka leedo mataqaanaa meesha cilmidgaan sidaas ayaanu soo qaadanay ku heshiinay waxaan ku xoojinay kaamka la yiraahdo si xawle waxaan soo qaadanay in la raro isagana waa ku heshiinay waxaanu tagnay kaamka la yiraahdo kalbardaale sidaas baan ku heshiinay shaqadan way soconaysaa waxaan rajayn doonaa bismillaahi kariim labada casho ee soo socda iyo saddex casho ee soo socda in kaamkaas ay ku soo xoroodaan meelii aan ugu tala galnay ee aan u cayimnay ee magaalooyinka hore u jiri jiray dadkuna way ku qanacsan yihiin hay'adaha caalamiga iyo kuwa mataqaanaa local NGO-yadaaba iyagana waxaanu farana u sheegaynaa inay halka ugu hagaagan dadkii deegaamada la geeyay ee haday tahay Yogoori Samakaab iyo Arcade inay ugu hagaagaan oo wixii ay siin jireen dadka halka lagu siiyo kaamkii go'aan baa laga gaaray wixii xoolo leh Ilaahay wuxuu reebay xoolahoodiba iyo dhaqashadoodiba ku ekaanayaan abaartii ka baxnay wixii aan xoolo lahayn waxa la geynayaa meel magaalo ah si magaaladuna ugu camirtay magaalo ugu noqoto iyagana meel la isugu geeyo wixii la siin jiray aanay u kala lumina meeshii loo siiyo dhulkan kaamamkan badanna dhulka laga baabiyo oo dhulku ku noqdo deegaamaysigan laga yareeyo go'aankii dawladdu qaadatay iyo qaraaradii laga soo saaray deegaamadan aynu joognay qaar kaleba ka mid yihiin waynu la wada soconay waxaanu xaqiijinaynaa oo fulinaynaa waajibaadkii dawladdu gaadhay wixii saaka dad ugu jirtay iyo dhaqanna waa loo baahan yahay dadka waxa weeye maamulka idinka marka hore haysta halka dejinaysaan hadda waxaanu isku ognaa meesha inoogu habboon Soomaade halkan aynu ka guurno inagoo fulina awaamiirtii dawladda iyo go'aanka wasiirka warsaama isku ognaa